tani markii magaalada Muqdisho lagu saxeexay heshiiskii arrimaha doorashooyinka ay wada gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa socday kulamo kala duwan oo madaxda maamulada ay ku doonayaan inay xildhibaanada golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare intaba ay kaga dhaadhiciyaan inay aqbalaan heshiiskaasi oo meel maro. madaxweynayaasha maamulada ayaa weli ku sugan magaalada Muqdisho iyadoo kulamadaas mid kasta oo kamid ah oo la qaatay xildhibaanada laga soo doorto deegaanada uu ka taliyo. xildhibaanada qaarkood ayaa doonaya inay halkaasi ka helaan fursad ay kaga baxaan warwarka ka haysta sidii dib ay ugu soo laaban lahaayeen kuraasta hadda ay ku fadhiyaan. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xildhibaanada golaha shacabka Mahad Cabdulla Cawad ayaa ka hadlay walaaca xildhibaanada hadda jooga ay ka qabaan heshiiska Muqdisho lagu gaaray oo uu sheegay inuu yahay mid u daneynaya madaxda maamulada iyo sidoo kale kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana arintaas aysan qayb ka ahayn xildhibaanada golaha shacabka. waxa uu madaxweynaha Puntland ugu baaqay inuu hor istaagin in xildhibaanada ay mar kale arintaas ay qayb ka noqdaan oo ay kuraasta ku soo laabtaan isagoo sheegay in walwalka ugu badan uu yahay in xildhibaanadii ka soo horjeeday madaxda maamul goboleedyada ee taageersanaa filla Soomaaliya ay meesha ka baxaan. madaxweyne hadaa heshiiseen wixii tuuriya aha annaguna heshiiskaanu ku jirnaa anigu kursiga xoogaha wuxuu transit ku soo yahay galmudug oo halkaas doorashada ku soo galayaa saaxiibadayada Puntland ku soo dooranaya ha kaan nabad galeen madax soo dhaweynteeda qayb bay ka tahay arrinta waa la heshiiyey waa la wada heshiiyey waxa weeye hebel baa waa halkaas wax ka ahaa iyo waxbay noo sheegi jireen nimanka saaxiibadii ee executive-ka ama qolyihii waa idin dhaaranayeen bay marka haddaad noo dhaaranayseen xataa hal la isdaayo hadda magaran doorashaan u soo soconnaa walaalayaal ammaan hallayda ka helo haddii kale heshiiska xulkaa wallahi inaan ansixinay marka waxaa kaa codsanayaa waa kuu xafladaylay waxa qiiq naga dhacaya dab waa u jeeday waa ciyaarnay adiga keligaa maahane kuwa kaloo dhegdegmood baa jira ayagana la hadla oo qoorqoor u sheega waxaa tiraa ninkaas meesha martida ku ah ammaan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ka jawaabayay cabashada ay qabaan xildhibaanada hadda ku fadhiya kuraasta ee ku aadan in laga hor istaago inay mar kale tartamaan. waxa uu sheegay in heshiiskii maamulada iyo madaxtooyada uusan hayn mid iyaga u gaar ah laakiin uu ahaa heshiis guud isagoo sheegay in doorashada soo socota xildhibaanada laga doonayo hadda inay meel mariyaan heshiiskan si ay u qancaan inay qayb ka noqdaan tartan furan oo madaxda maamul goboleedyada sida uu sheegay aysan ku dhigi doonin dadka kuraasta u tartamaya. habeenkan siyaasadda ka fogay laakiin Mahad baa xoogaa ugu celiyay horta Mahad waxaan rabaa halkeenan ka cadeeyo anoo saaxiibaday ku hadlay afkooda heshiiska dhacay annagu kaliya ma aan heshiinay heshiiska bulshada Soomaaliyeed baan u qaadnay dadkoo dhan inay heshiiyaan oo la iscafiyo kursiga uu Mahad la soo cararay waa soo ceshan kartaa waan ku dheelahay waxaan ballan qaadayaa hadduu soo noqdo inuu soo ku soo baxo hadduu galmudug yaalana waa ka daba tegayaa inaan kala shaqeeyo halka sheekay waa saaxiib qaali oo muddo dheer aan soo wada shaqeynay saaxiibada kale oo u hadlay oo xildhibaanada hadda ah annaga garanayna xildhibaan wax doon ah inaad garab naga heshaan maahane furunturooyin naga filan maysaan insha Allah. dabcan heshiiskan Muqdisho lagu gaaray oo ka soo bilowday Samareeb ama magacii hore X dhoo Samareeb hadda waa laga bedelay afkiina iska bartay intaas runtii wuxuu ahaa heshiis loogu danaynayo dalka iyo dadka inaan iscafinay baan anoo saaxiibaday qiraya marka inaad ansixisaanna waan rajaynayaa hadii ilaahay oo dhagax tuurka iska daysaan insha Allah. madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay soo gaarayeen warar ku saabsan in xildhibaanada qaarkood ay aaminsan yihiin inuusan xataa ogolaan doonin in kuraasta ay dib ugu soo laabtaan inay tartamaan iska badaayay
waxaana uu sheegay in arrintaas maamuladu aysan qabin oo doorashada heshiiska sida ku qoran ay tahay in la qabto doorasho hufan oo dhammaan ay ka wada qayb galaan bulshada Soomaaliyeed sidoo kalena waxa uu sheegay inaysan jirin xildhibaan uu ku dhagan yahay dadkii kulli reer koonfur galbeed xildhibaanadoodii waxay leeyihiin lafta gareen seefu haystaa waa dhaarsan yahay qof soo noqonay malhu yiri qof imaanay malhu yiri waxa la akhrinaya horta marka ugu horeysa aniga dhaqankaygaba ma aha oo ilaahay gooyay waligay qof bini aadana ma dulminin qofkii dulmiyana waa cafiya dhaqan aan u leeyahay waay beentaas waa la iga gaday waa la iga sheegay qofaan ku irina ma jirto waxna kama jiraan sharcigan heshiiska lagu yahay oo lagu soo heshiiyay dadka ugu fiican baa noqon doonaa inaad asagana marka lidin keenaan saxiisan goobta ugu badan ee cabashadu ay ka taagan tahay ayaa ah maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyadoo ay xusuus mudan tahay in xildhibaano badan oo laga soo doortay deegaanada maamulkaas ay si weyn kaga soo horjeedeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaana qaarkood kuraasta ay u wareegsadeen gobolka Gado halkaas oo dawladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso maamulka Jubbaland uusan xilligan wax tala ah ku lahayn hawlaha ka socda inkastoo kuraasi dib lagu soo celiyay magaalada Kismaayo inta badan haddana madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu xildhibaanada golaha shacabka ku qancinayaa in heshiiska ay meel mariyaan si ay kuraasta ugu soo laabtaan marraba inaan idinku eego dadka qaarkii xogaa qaarba hoos foor iyo waxbaa jirtira haddaad dawladda la shaqayseen oo doorateen oo soo dhaweyseen dabiilkii aan shalay idinkula dardaarmay ahay idinkuma eegi karaya soo maaha hadday anaga iyo dawladda waxyaro jirjireen maanta wax dhibaato dhexdeeda yaallaa ma jiro waanu ka heshiinay haddii waqtiyada qaarkood aan lahaa anigoo nimankii hebel iyo hebel ahaa maanta gurmad uga baahanta maxay ku kaalmeyn waayeen waxay yidhahdeen inuu dabiilkii hore noo sheegtay waanu ku jirnaa wax kale ma geli karo marka waxaan rabaa taas inaan saa ogaano oo caadi la iska dhigo aanan idiin sheego maanta qofaan waxu qabaan inuuna jirin idinkana qofkii waxay qabaan rabo intii la iscafiyo inaan horta innagoo caadi oo wada hadalno waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo hadalkayga war xildhibaanada ha la iscafiyo waxaan maraa ani cudur badan igama qabtaane laakiin adana isleedin cudur badan ka qabaayo odayu dagaal dheer oo soo galay weydaan u helinaba saasuu qabaayo hal qofoo waxu qabaa ma jiro warcad soo maha kaas oonan ka mujaamalaynaynin oonan qofna calafkiisa iyo nasiibkiisa shaqo ku lahayn oo aan ka shaqaynayno sida ugu wanaagsan ee shalay aynu ku soo kala tagnay 2017 January markaan soo kala tagaynay haddana inaan rabo inaan halkii ka waxay heshiiska magaalada Muqdisho ay ku wada gaareen maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ku saabsan arrimaha doorashooyinka ayaa u dhigmay midkii 2016 dalka ka dhacay marka laga reebo in ergada la kordhiyay oo laga dhigay 101 halka markii hore ay ahayd 51 waxaana sidoo kale goobaha doorashada oo sanadkii 2016 ahaa hal goob oo ahaa caasimadda maamul goboleedyada hadda laga dhigay in laba goobood doorashada lagu qabto oo mid ay tahay caasimadda maamul goboleedka mid labaadna ay noqoto caasimadda gobol ka mid ah gobolada maamul goboleedka uu ka taliyo iyadoo inta badan ba xildhibaanada ku sugan magaalada Muqdisho ee golaha shacabka ka tirsan arrintaas ay walaac ka muujinayeen maadaama aysan dhici doonin in kuraasta ay wareegsadaan degmooyinkii doorashada la filayay inay ka dhacdo beesha caalamka ayaa sheegtay in heshiiska doorashada ay wada gaareen madaxda heer federaal iyo heer dawlad goboleed uu ka hooseeyo heerkii la filayay Awees Bashiir ayaa warkaasi inoo haya xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray heshiiskii doorasho ay Muqdisho ku gaareen madaxweyne Farmaajo madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiska uu weli qabyo u yahay ayna ka maqan yihiin saamilayda siyaasadeed ee dalka waxaana madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada looga baaqay in ay joogteeyaan wada hadallada la xiriira war-saxaafadeedka beesha caalamka ayaan u qornaa saaxiibada beesha caalamka waxa ay garawsan yihiin heshiiskii ay ku dhawaaqeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo shanta madaxweyne dawlad goboleed ee xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya heshiiskaas
ay la xiriira geedi socodka doorashooyinka 2021 waxay qirayaan in heshiiskan uu ka dhashay wada hadal ay Soomaali garwadeen ka tahay isla markaasina ay Soomaali leedahay kaas oo dhex maray madaxda dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada xubnaha ka federaalka waxayna saaxiibada fahamsan yihiin in qaar ka mid ah faahfaahinta geedi socodka lagu heshiiyay aan weli cadayn oo saamilay dheeraad ah lagala tashan karo saaxiibada waxay iyaga oo ka xun arkayaan in hanaanka la shaaciyay uu ka hooseeyo yoolkii Soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamayay ee ahaa cod bixinta toos ah oo lagu soo doorto